my grandparents 36 عشرة صدق الحد وحكاليا my grandparents awoowayaashayda ama ayeeyayaashayda grandparents waxaa la dhahaa grand waa weyn parents waalidiinta waa weyn waalidiinta oo macnaheedu waxay tahay waa awoowaha iyo ayeeyada ayay grandparents u yaqaanaan so you have gone waxaad aaday visiting inaad booqatid so you have gone waxaad aaday visiting inaad booqatid your grandpa aabaha awowga iyo ayeeyda inaad booqatid last week usbuucii lasoo last weekend dhammaadka usbuucii lasoo dhaaf so you have gone waxaad aaday soo maaha you have gone macnaha warka wuxuu u dhigan yahay si statement ahaan laakiin su-aal ahaan aad uga dhigay so you've gone visiting your grandpa last weekend warkii macnaha waxuu sameynay codka saa ugu codaynaysa ayaa waxaa uga dhigay su-aal ahaan so you have gone visiting your grandpa last weekend waxaad aaday inaad booqatid awowaha iyo ayada usbuucii dhammaadkii lasoo dhaafay yep ha my grandfather awowgay must be waxaa dhici karta inuu jiro must be waxaaba uu jiri karaa in his late 80s siddeetankiibaa usii dhammaanaya siddeetamaadkiisaa usii dhammaanhaya dhammaadka siddeetankiisu late means dhammaad late 80s siddeetanka meeshii ugu dambaysuu sii marayaan and he's very active welina waa nin aad u firfircoon wey and he's very active firfircoon waa mid aad u firfircoon wow allah that's great waa wax weyn that's great what about your grandma ayayda ka waran what about ka waran your grandma ayayda ka waran she's very sprightly old woman too she's iyada a very sprightly waa mid aad u firfircoon sprightly she's very waxay tahay mid aad u fudud waa sprite old woman too sidoo kale waa ayeeyo ama islaan waayeel ah oo aad u firfircoon way sprightly active full of life qof muxuu ahaa very energetic ah agile way fudfududahay macnaha maaha qof waayeel ahoo laclac ahoo dhacay saasuu ka wadaa sprightly ereyga marka la isticmaala waa noocaas old woman waa islaan duq ah oo haddana firfircoon tuu sidoo kale in fact dhab ahaantii my grandparents awowgay iyo ayeydayba from my mother's side oo ka socda dhinaca hooyada from my mother's side dhinaca hooyada waaye awowgay aabba ayeyda aan sheega waa dhinaca hooyada grandparents from my father's side aabbaha dhinaciisa markii la yiraahdo saasaa loo kala qaadaa mother side father side dhinaca hooyada iyo dhinaca aabbaha waxay yihiin pretty healthy kuwo aad u caafimaad qaba pretty very waa macnaheedu pretty aad erayada aadka ah wax badanaan baranay pretty waa eraygii aad oo saddexaadan arkayna waa dhowr kolana waa soo aragnay pretty white very xasan oo isla mid pretty healthy waa kuwo aad u caafimaad qaba active waana kuwo firfircoon themselves u dhowdun dad firfircoon waaye oo shaqeynaya weli she is very sprightly old woman too sidoo kale waa islaan waayeela oo firfircoon wey in fact dhab ahaantii my grandparents waalidiintayda awowgay ayeyday from my father's side mother side dhinaca hooyada pretty healthy waa kuwo aad u caafimaad qaba wey and active sidoo kale kuwo firfircoon waa themselves that's really good to hear taasi waa dhab ahaantii good to hear waa wax fiican in la maqlo that's really good to hear waa wax fiican in la maqlo your voice dadkaagu no waxay yaqaanaan dadkaaga waxaa ka wadaa waa ayeeye iyo
no waxay yaqaanaan how to take care of sida la iskaga taxadiro how to take care of themselves sida iskaga taxadiraan way yaqaanaan how to take care of sida la isku daryeelo take care of daryeel take care of yourself naftaada daryeel take care of the children furtaada daryeel take care of daryeel take care of daryeel sida loo daryeelo u yaqaanaan themselves nafsadooda yaa our family qoyskeenu eats waxay cunaan right cuntadii saxda ay cunaan and exercises sidoo kalena exercisesna way sameeyaan exercisena way sameeyaan our family qoyskeenu eats wuxuu cunaa right cuntadii saxda and exercises sidoo kalena jimicsina way sameeyaan dad meel fadhiya ma aha that is why taasina waa sababta we are healthy aan u caafimaad qabno sababtuna waxay tahay we are healthy taasina waa sababta aan u caafimaad qabno weeye